كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. kulan loogu duceynayay allah u naxariistay wasiiradii haweenka Khadiija Maxamed Diiriye ayaa lagu qabtay caasimadda Sweden ee Stockholm. kulankani waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Stockholm. dhammaan dadkii goobta ka hadlay ayaa marxuumad Khadiija Maxamed Diiriye ku tilmaamay haliyey qaran kana geeriyootay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. أنا أقول لها مع أوروك سبيس ومد صوماليات كون هذا مع ومد صوماليات يكون قندل كان السويدن جاليدي ذيك اللي دون دمان وحان تعسي أما برديق أما حنون كلا قيب سنة ومد صوماليات مالكستي الدنيا ذيك جوكتو خاصة ومد صوماليات كون قندل كجوديه صوماليا تعسي ذي نحن تلهات أما غير ذي نحن تلهات كنت ميت xildhibaano deena qaran maamadii qaranka Soomaaliyeed muddooyinkii qarniga 20aad ummad Soomaaliyeed u soo baxday ahayd maamo ku dayasho hal abuur iyo hal hees mid kastaba laheeday oo Ilaahay maanta naga jeclaaday markhaatina waxa idin ah jaceelkeedii in ummad Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay ka qadam qatay haddaan ahay ururka ummad Soomaaliyeed ee isbahaysiga dalkan Sweden waxaan tacsi u direynaa qaranka ummad Soomaaliyeed oo dhammaan maanta halkaan isugu nimid inaan walaasheen wasiiradeennii qaranka Soomaaliyeed Khadiija Maxamed Diiriye aan ugu duceyno waxaan halkaan u soo abaabulay oo iigu weynaa hooyanimo dumarnimo ayaa i qaaday sababtoo ah hooyo ummadda Soomaaliyeed ay ku wada tirsan tahay ahayd qaranna way ahayd 23 sano qof dawlad ku jiray wax sahlan ma aha waana mas'uuliyad iyadoo hooyo ah iyadoo caruur haysata inay dawladii iyo wadankii iyo dadkiiba isku haysay marka qof aad loo jecel yahay qof wanaagsan ee qof dad jecel yahay إلهي وحنا وبرينا دعاء إن الجنة ولا أنا قديج وحنا 100% قف صدق بدن إلى تاج صدق بدن ذاتك مسكين تعاود جرتي هذا ويل كان دها هاي ستة هذا سيد تاريخ دي سأنيجي شيء دها لول كان لوجو تجي قبل هذا الشيء لول كي ما يلقاشين يدتي قبل السوق هذا توحيد ويل وحنا هيا حنوصل ما هيكره ولا ليالو حليق قفته قديج ديري ترى أنا هذا ما نتغير حليق كانوا إلهي الجنة هجيه وحياة قف وناكسن قف ضد جعل قف في عن قف هذا كنرجع شيء كذا أو بهنسد ومدة وحلقة في سنة نما كاس نسكعلنا سوارهم سي شيء ولا شيء زارب برقدي قديجو وقف وحيد عد كذا بوسنسه وأد وعدك ووزير يمدحوين وحوا جحن ناق وحبرته ديارته كان يفترون دي قف كعلوس ولقي نور شيء ماركن إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى رسولك صلى الله عليه وسلم دعاء أوفي عنه اللي قد عيسى مركو قفك سئنه شيء مركو قفك وجريوده وحويا عمل سنه إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى معنى هذا وحويا إن لله ما أخذ إلهي استجع إسكال وحي أوقاته وله ما أعطى وحو بحيانه استجع إسكاله وكل شيء عنده بأجل مسمى وحكستن وحوليه حل فيكسد أو جوان أو أنا دافين كريم بوليه وحكست الله سمي بني آدم هالكاس وليه مرك آيات دي قرآن كذا الشيخ إنه قبل الله وكهذا كل نفس ذائقة الموت قف كست أو الدنيا الجوكتا نف كست waxay dhadhaminaysaa sida loo dhadhamiyo cuntooyinka oo kale iyo cabitaanka geerida dhadhaminaysaa walaashay Khadiijo maama Khadiijo wasiir Khadiijo Allah u naxariisto qabriga Allah u waasiciyo kitaabkeedii midigta quraanka ahaa iyo musxafkii iyo Ilaahay ha ka siiyo
إلهي هأجيو دتك ونعسنا اللهم اجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واغسلها بالماء والثلج والبرد يا الله يا كريم. وقرنك سوماليين كبحدي bulshada Soomaaliyeed ay si dhab u dareentay xanuunka geerideeda Khadija Maxamed Diiriye waxaan ku tilmaano ma naqaano waxay qof Ilaahayna siiyay Ilaahayna cishte waxaan leeyahay Allah u naxariisto ilmaheedii iyo qoyskeedii eheladeedii iyo qaranka Soomaaliyeedba samir iyo iimaan Allah ka siiyo. Saabir Cilmi Yuusuf warbaahinta qaranka Sweden.